نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله منها. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تبارك وتعالى قل تعالوا واتل ما حرم عليكم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليال توفيق الله نوافقشيو خير كان الله نكو عاديو إلهي waxaan weydiisanaynaa inuu ku soo kalmada teeda toosan ee xaq ah ilaahay ka barya subhanahu wa ta'ala. ilaahay waxaan weydiisanaynaa fadhigeenaan ilaahay iyo muhaadaraanba ilaahay inuu barakeeyo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inay noqoto mid xeel dheer oo meel fogna gaadha dad badanna ku anfacaan oo ay maaragtay ku raqaataan oo ay maaragtay ilaahay xaqiisan ugu dhawaadaan waaridkoodana ay baad ugu noqdaan. walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala baa mahad iskala marka koobaad ina ka dhigay muslim ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala marka hore ibn aadamna ka dhigo ina karaameeyay kadibna ilaahay subhanahu wa ta'ala haddana ummatu muhammad ina ku daray waqtigaas ina soo gaarsiiyay haddana kitaab iyo rasuul muhammad sallallahu alayhi wasallam noo soo diray haddana iimaanka ilaahay ina geliyay iyadoo nabi muhammad kutubtiisa ay taalo dad badan oo gaala ah ayaa jira adduunka maanta oo hadii laga sheekeeyo adna xaysid waxay ku dhaqmayaan. marka ilaahay mahadiisu ay horta intaas oo nimca ilaahay baan ku mahadinaynaa. waxaan kaloo ilaahay ku mahadinaynaa ilaahay halkaan soo keenay oo caafimaadka iyo siiyay garashada iyo waxaan kaloo ilaahay ku mahadinaynaa masjidka weyn dadkii dhisayna ilaahay waxaan u weydiinaynaa xaaji cali bixi loogu magac daray ama loo dhiso loo waqfay iyo ciddii dhistayba iyagana ilaahay inuu ka abaalmariyo oo janno fardowso ilaahay uu ku siiyo subhanahu wa ta'ala u weydiinay oo asharkeeda iyo khayrkeeda oo weyn ilaahay u gaarsiiyo. walaalayaal muhaadaradana ku saabsan tahay birrul waalidayn waalidka oo baahi loo noqdo iyo sidoo kale dhinaca kale waalidka oo la iska ilaaliyo in caad lagu noqdo ma garanaysa. taas baa muhaadaradana ku saabsan tahay. waxaase ka horeeya markasta waxa ugu horeeya xaq rabbi ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa u horeeya haddana ilaahay xaqiisa wuxuu ku xijiyay xaqa waalidka ayuu ku xijiyay quraanka dhammaan baan fiirsan. marka xaqaas ilaahay subhanahu wa ta'ala marka hore inaynu gudano waa midda koowaad ee ka hadli doono. midda labaadna waa xaqa waalidka. midda saddexaad oo ku dari doona waxay tahay hadii la yiraahdo qiso aniga laftigayga soo maray oo xaqa waalidka iga soo maray Allah u naxariistay jannadina Allah geeye oo aan rabo dadku inay ku cibro qaataan oo runtii aan ka helay maartay waxa weyn oo maartay lagu taamil qaato oo yaani ilaahay xaqiisa aan janno uga rajaynay
siiyo iyo wax ka weyn ilaahay inuu siiyo sidaa dadka waxaan jecelaystay dadka inaan u gudbiyo intaan kaliya igu ekaan lahay anigu awrta qisada waxaan rabay in aniga maartay waxaan ka baqayay inay noqoto wax faan oo kale ama maartay riyaa oo kale ay igu noqoto oo dan dadka u sheego inay maartay noqoto nin faan ay amal aan noqdo amalkaygu saa ku buro ayaan ka baqayay laakiin marka culimada iyo la kaashaday ama iyagu qaafkood waxay soo jeediyeen inaan gudbiyo si dadku ay ugu cibra qaataan oo laftigoodu ay maartay ugu daydaan oo ay khayrka u raadiyaan inay ka khayr badan tahay inaan la aamusnaado sababtoo ah inama al-a'maalu bin-niyaat nabiga sallallahu alayhi wa sallam wa inama likulli imri'in ma nawa qof walba amalka waxa la fiirinayaa niyada qof walba wuxuu niyeysto buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam marka haddii niyadeennu fiican tahay oo niyadeennu ay khayr tahay in maaragtay lagu cibro qaato ayada marka qodobka saddexaadna waa kaas weeyaan qodobka afraad ugu dambaysiinaya wuxuu yahay haddii alla idmo waalidka inaan caaq lagu noqonin iyo xuquuqta ay leedahay ciddii waalidka caaq ku noqota arrimahaas ayaan insha Allah soo qaadi doonaa marka koowaad marka waxaan leenahay xaqa rabbi baa ugu horeeya ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ina amray oo quraankiisa ilaahay ku amray aayaadka hadda u horeeyaba وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلهي وحو أمري إلهي وحو حكمي إننا نعابد إساقموا إياه اتكلم إننا نعابد إلهي سبحانه وتعالى آيات ذاك الأكور سواتوا إلهي سبحانه وتعالى سقنا يري قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا waxa ku tiraahdaa kaalaya aan idin sheego dusheena ku akhriyo waxa ilaahay ka xarimay oo maxay yihiin ilaahay inaan u sharigiyeen waxa inaan la wadaagsan nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa sallam ba hatta ilaahay wuxuu ku yiri walaqad uhiya ilayka wa ila alladheena min qablika la in ashrakta la yahbadanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin wa nabiyullaahi maxamed abgaranaysa sallallahu alayhi wa sallam oo khayru khalqillaahi oo ilaahay muddo u soo diray oo maartay aad garanaysaan baa ilaahay isagoo og inuu toosayo baa la amraya oo la leeyahay nabi maxamedow hadaa ilaahay u sadigiyo marka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka soo toomaysa ilaahay u sadigiyo sallallahu alayhi wasallam laakiin waxa la hadlayaa inaga weeyaan hadii nabi maxamed lagu yeeray ilaahay u sadigiyo amalka waa buraya inaga wax geed joognaa نوع كسي فقنا وياه مركا نبي صلى الله عليه وسلم وانا سو كوبينا ما دار سو كوبيا نبي صلى الله عليه وسلم بعد من جال باوحو يري نبي صلى الله عليه وسلم باوحو leeyahay nabiga ayaan gaadid la saarnaa ma garanaysa markaas nabiga wuxuu igu yiri muaadow ma garanaysa xaqqullaahi ala al-ibaad ilaahay xaqu ku leeyahay adoomadiisa ma garanaysa marka waxaan ku yiri saxaabigaasi وما حق الله على العباد وما حق العباد على الله نبي هو سي ودا هي حق رب كليه هي ضمن waxay رب kuleeyihiin ma garanaysa يعني معاذ ما garanaysa rabbiga xaq kuleeyahay adoomada iyo adoomada laftooda xaq ay rabbi kuleeyihiin قلت waxaan ku yiri Allah wa rasuuluhu a'lam ilaahay rasuulkiisa ayaa u cilmi badan qaala nabigu wuxuu yiri fa inna haqqa allahi ala al-ibad haqqa adoomada alla kuleeyahay waxa weeye an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a ilaahay inay caabudaan oo waxba aanay ku lamaanay nabi iyo marag iyo sheekh iyo shariif iyo awliyo iyo minna marka saas way xaq ilaahay ku leeyahay in kaliya caabudaan cibaadada waxa way baryada ilaahay baa oo dhawaaqashada ilaahay baa oo salaada ilaahay baa loo tukada oo ilaahay baa la ismaqashiya oo ilaahay baa laga baqa oo ilaahay baa maartay amalka loo niyeystaa hada amalka cid kale oo niyeysato maanta qiyaame wajiga laga dhufanaya sida maqashay nabiga sallallahu alayhi wasallam saddexda nin ee maanta qiyaame naata loogu horin doono oo naata loogu horsubi doono nabigu wuxuu yiri wuxuu ku tilmaamay saddex qof oo adduunka inay qiimo badan mid waa sheekh caalim ah midna waxa weeyaan in maal qabeen ah weeyaan oo cilmi maalkiisa ku bixiya diinta ku bixiya ninna waa nin shahiiday oo jihaadkiisa uu jiray ku dhintay saddexdaba nabigu wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam soo koobaynaa mid kasta in la oran doono maanta qiyaam maxaad cilmiga ku baratay cilmiga wuxuu oran doonaa ilaahay daraada waa cilmiga u akhri dadkana u baray nabigu wuxuu yiri ilaahay wuxuu ku oran doonaa beentaa way cilmiga waxaad u baratay dadka u baraysay in lagu dhaho waa caalim waana lagu yiri nabigu wuxuu yiri waji baa naarta loogu tuuray
dadkaas maqashiinaysay dadkuna waa ku maqleen aniga ilama adan lahayn waa saddex qof oo naarta loogu horin doono isaga iyaga u horay wax naarta lagu rid kow kaasaas loogu tuuray kii waxa loo yeeray shahidka ah bal waran ilaahu waa dagaalamay darta ilaa darta la ii dilay beentaawo waxa allah galgu ah waa gees waana la yiri وشي بان أنت لو قطوري كي مالك فرها بدن لها يا مساجد النساء وحب النساء وحب كشقيني ما حد قبطي إله درتها بان مساجد النساء أو غيرك وشقي أو وحا أبحي نبي وحو يروح على غرنا كذبت بين باش شكتي وحا أبحي سيئات لها وديكس ما حولها أبحي وضدك أمانا وأنا كلهن وشي بان أنت لو قطوري مركا الركاسي أدبو وياها أبدي هاي هل اسكتشف أنا قاسبان تدبت إنس بغشيو ولذا وياها وحا أضبطي إن فيديو وحكا soo qabanaya video la duubo marka videogu marka qarto waa iman karaayo hada waxa weeye dadka wax soo diray ama hawsada raba in la maqashiyo waa keen karaa marka arko in marba la duubo laakiin waa in iska jirnaa hadana inay meesha soo gasho isbaqashiis weeyaan sidoo kale walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiyullah Isa oo garanaysa alayhi salaam oo reer bani Israa'iil ama dadka hadda reer Nasaara ama Kristaanka dariskeenna ay u yeertaan oo ay leeyihiin isaga wax noo qabanaya baa hadlay quraanka ilaahay kaga hadlay way qaal Isa ibn Maryam ya bani Israa'iil abdullah rabbi wa rabbukum bal u sheeg baa la yiri nabi Maxamed markii reer bani Israa'iil nabi Isa uu ku yiri war ilaahay rabbiga caabuda idinka rabbigeena caabuda إنه ما يشرك بالله قفك إله أشرك ياله فقد حرم الله عليه الجنة إله جنة وكحرم ومأواه النار ما يشوفه يعني النار وما للظالمين من أنصار marka waxa weeyaan qofkii ilaahay cid la wadaashay waa nabiyullah Isa oo waliba nool ay ognahay oo dadkii caabudis dadka hadda u yeeranayaan baa la diiday marka waxa taas waa midaas weeyaan marka cilaada kaligiis baa ilaahay iska subhanahu wa ta'ala marka taas waa midaas waxa ilaahay markuu xijiyay subhanahu wa ta'ala waaridka baa xaqiisa lagu xijiyay labadii ku dhashay ayaa lagu xijiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aadiya inuu ku boriyay labada in dhashay wad garanaysaano dibkeena ka soo mareen iyo hawsheena ka soo mareen iyo say u dadaaleen waad garan karaysaa yaani waxa weeyaan adigu waad ka dhaatay mooyaan waxaad ku dhaatayna wax war kama aynahay marka ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلهي وحو أمري أما حكمي إنا لعابدين إساق مويان وبالوالدين إلهي وحو كلوه أمري وفري ولودي والدنا إحسانا يعني الله سمي إحسان الله سمي إما يبلغن عندك الكبر هذا أكتر هذا داء كجاران أحدهما متكون أو كلاهما أما لبضوضبا فلا تقول لهما أف كؤرا أف عربي وحلي على كلمة هل كان واحد كسر رضا فوف ترى هدينا أهلاتي أنا واحد أف وضوء على يد هذا وياه واحد إنما هذا أف وحوين بينهم نقانا رنتي أو أف وحوين بينهم نقانا واحد غرمي بينهم نقانا لكن عربي تعبت واحد ترى هذا والله كان كلمة واحد كان سهرا واحد فوف ترى وكله سدع المضى عن كم مقبل معناها واحد حويراته وحبها كود ديدم لبدا ku dhashay kelmada ku celinay koo waliba waxa la soo hormariyay hadii midkood agtaada ku weynaado ama labadoodba ku weynaadaan waayo waxa weeyaan waxaad ogaataa marka yar yihiin xataa oo isa wali gaboobin ku jidhaay waxa laga wadaa waxay ugu baahi badan yihiin markay weynaadaan oo ay da'an noqdaan oo waxay ku dhalayeen inay kugu nastaan oo ilmaha daadku wuxuu u dhalaayo u korsada ilaahay uu ogtahay bin aadamka waxa isaga abuuray inna uma baahna ilaahay waa qani marka wuxuu inoo abuuray in caabudno kaliya inoo abuuray laakiin waalidku maxay wax ilmaha u dhalaan inay ku nastaan bari markay weynaadaan oo ku dagaan oo ku qaboobaan waliba hadda waayahan waa la laayahay wax lagu nasto xaaladu waa adagtahay Allah inoo yeesho garnas laakiin saasay ahaan jirtay odagu markuu konton gaaro 20 wiil ama 5 wiil ama 6 wiil baa u kiciyay marka 15 gaaraan baa shaqayn jiray wasawirna waan soo jiray hada su'aal sallallahu alayhi dhibtayna haysta inagana sababtano gacmaha ku shaqaysanay marka ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala saw aranka ilaahay si wada subhanahu wa ta'ala hana guulguulin ha guulguulin oo yaani taas ku qabo hadalka halka korkeen xasaa'ileed waxa ku qoranaa baa hooyada ku qoran marka maxaad dhahaysaa wallahuma qawlan kariima hada wanaagsan u dhahay Allah subhanahu wa ta'ala وخفض لهما جناح الذل وحضر رأسا قربك نحريست أرارع ومن الرحمة يعني الذلين تمركب بقتان لقما وذي رحمة درادة قربك أرارع فأمنا حيا أطرية آبهي هويهي بس وحانينها أرارع إلهي أبري وصين الله لي
كور marka ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala inta markaad wanaaga u dhamaysid oo wax kasta u qabatid hadana u ducee waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira hadana waxa tiraahdaa ilaahayow u kori ilaahay u naxariiso say ii koriyeen markii aan saghirka ahaa ilaahay wuxuu kale leeyahay subhanahu wa ta'ala walaalaya wa'budu allaha ilaahay caabuda wala tushriku bihi shay'an innaha la wadaajinina أو كله عابدة وبالوالدين إحسانا إلهي سبحانه وتعالى وعقلنا فريا لبدي والد أسمى إحسان آيات كلها حسن بالين هو إحسان بالين وأنا أسمى يوي ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وهو نفس النبي ياشي لكون ريجي سوى والد كون باره وقوة هذين سوى إلهي القرآن سوى كور رمية أيو إلهي وهو يري سوى كور رمية نبي الله زكريا أيو إلهي سبحانه وتعالى نبي يحيى كور رمية صدري أيو وهو يري الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة نبي يحيى وقال كتاب هو كقاض أو كقاض ما نكون يعني وآتيناهم حكم سبيا سوى يرضى نفس نبي الله يحيى وقرن سانه نبي زكريا عليه وحنانا بان كفرنا من لدنا أنا حقي كأهاتي والزكاة يظهرنان وكان وحوها تقيا مثل الله كعب صلاة وبرا بوأها مثل بار بوالديه لبدي والد ولم يكن جبارا عسيا موصل هاي من أغلف سن ووالد عاسك أمام هاي إنه وحنا نقول أنه إلا كنت ينويا صدق الإله يقول سبحانه وتعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أين المكتوب وصان المصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ونبي الله عيسى طنا نبي الله عيسى وقلنا سان أبا ما لهين نبي الله عيسى أبا ما لهين يوحوا لها هوي إله بان أبوري وحان أساس الله يالي إلهي إنه وحر أبوركم وإلهي أولتنا نبي الله آدم أبلعاني هو يلعان بو أبو وأبيه هو يمن الملك وقفك عن أبيه هو يكر لهين ونبي الله آدم عليه السلام لكن حواء فيدي سبدح يغلو عن أيها لك أبوري حواء ويضو أبا إليه نبي الله عيسى عليه السلام هو يقول يا مريم أيها شيء لكن أبا ملك dadka intii kalena aabihi hooyay leeyihiin waxay ku tusaysaa yani ilaahay inuu soo rabo wuxuu abuuri karo oo ilaahay ka nazahan yahay waxa gaaladu ay leeyihiin ilaahay caruur buu leeyahay subhanallahi amma yasifu inuu ka nazahan yahay oo ilaahay soo rabo yeeli marka nabi ilaahay ciisa baa wuxuu ka warramaya markii la yidhi hadal oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka hadlinayay isagoo yar oo dhashay oo dhabta ay ku sido hooyadiis ayuu wuxuu yiri oo la yiri maxaa tahay inni abdullah adoon alle baan ahay aataani alkitaab ma oran isagu wiilkii ilaahay baan ahay ma soo oran إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا كتاب إلهي سي نبينا وايقدق وجعلني مباركا بإقرب بالبركيسا أينما كنتم يشان هالبا وأوصاني إلهي وحي يدر دار ما يوفري بالصلاة صلاة والزكاة زكاة ما دمت حي انت نولهي وحكلو إلهي فري وبرا بوالدتي بوفرس والدتي مورا والدي وهو يضي ولم يجعلني جبارا شقيا إلهي إقامدك سبحانه وتعالى من عاسئة أو الشقة إقامدك مركا آياتك إله كورنه أد وفر بديه أو كورنه خاصة والدك أد إله كورنه مركا صدق في الصغرانك مركا سو إلهي وهالله إلهي وحقول من عمانيس ووالدك لما وهي والدك حق أوليه هي ما سنة والدك هذا وارك دوناي أد بالله ضيعي نبي مركا صلى الله عليه وسلم الله أيها إستغانا كورنه سيجارة برهبارنمada والدك عبد الله بن مسعود بوحو ليهي نبي ayaa waxaan weydiiyay nabi Allah wa amaasha maxaa ugu ilaa xaqiisa lagu jacayl baday xaq rabbi amal la shaqeeyo la sameeyo islaamnimo ka bacd oo qofku deewashaato aslan ma laga wadaay amalka ugu fiican waa ka qaal nabi wuxuu as-salaatu ala waqtiha sadda waqtiga dadka daa fiirsan maanta salaadi waa la dayacay oo wax tukanaya ma jiraan dadkii wax yar hadda saakada meel hotel oo nin wardiye ka ah buu wuxuu leeyahay masaajidka saaka hal qof baa ka aaday hotelka arano aan joognoy saacada subax uu sheegay hal qof baa ka aaday inta kale wax soo baxay alwaadinka wardiyaha hal qof baa hotelka arano ka baxay masaajidka aaday basaad subax ka warramay meesha marayso ilaa baan ku dhashay
وصلاتي قفك اللي يريد ugu fadli badan markii tawxiid la yimaado ugu fadliga badneed weeyaan waa tii nabigu yiri markuu aakhira la yimaado qofka waxa loo xisaabay waxa ugu horeeya muslimka salaadiisa hadii salaadu hagaagto amalkiisa kale waa hagaagaya hadii salaadu hagaagu weydo amalkiisa kale waxa la oranayaa salaadiisa hadii hagaagu weydo sunnayaal mareey markaas waxa haduu leeyahay dadka hadii amalkiisa salaadu hagaagu weydo amalkiisa ma hagaagaya salaada koow ah waxa qofka loo xisaabay cibaadadiisa muslimka ah ma garanaysa marka nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saxaabigaas wuxuu kala weydiiyay nabi Allah maxaa ku xiga marka nabigu wuxuu yiri birrul waalidayn salaada saas loo adkeeyay salaada waqti rabbi la hadlay oo hadalka qofka xiriirka rabbi ka dhaxeeya waxa ku xiga waalidka baar loo noqdo inna sallallahu alayhi wasallam wala firs waxa kale kamid ah walaalayaal nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix oo garanaya waxa kale xadiis saxaabada ku daahimayna sababta baarna rabbi ma ka rabi doona hadii la yiraahdo waxa kale kamid ah Abdullah ibn Amr ibn Asad radhiyallahu anhu waxa laga wariyay inuu yiri qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri rida Allah fi rida alwalidayn ilaahi raali ahaanshiisu wuxuu ku dhex jiraa waalidka raali ahaanshiis raali ahaansha Allah waxa lagu helaa in waalidku raali noqdo oo waalidka la raali gareeyo badhageysaalka وسخط الله في سخط الوالدين عرض ربنا وحي كون شدا و كدخ جدا والدك عرضي سو كدخ جدا والدك عرضه الهنا وكو عرضه يا ما كنا شي بالكوره يا ما انت ماشي والدك لا مرينay iyo dibta loo geysanay iyo shida la gelinay iyo sida looga caraysanay har iyo habeen iyo sida dan looga lahayn nabiga sallallahu alayhi wasallam walaalaya aad buu inoo kaga waramay waalidka xaq faraha badan oo leeyahay waxa kale oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam marka waxaan ogaanay waalidku inuu yahay haddii waalidka raali garayso ilaahay baa ka raali noqonay haddii rabbi ka raali noqdana shan ilaahay ku gelinay adduunka iyo aakhirana waa ku leebaanay waxaad u baahan tahay marka ya rabbi tiraadi ilaa mutaqiinta ku biidhay ilaahay ilaa ma taqaddo la mutaqiin ku biidhay ilaahay marka barada wuu ku aqbalay oo ilaahay waxaad u baahan tahay ku siinay oo cadawgu ka waardeynay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku ilaalinay oo waxa laga doontaa oo kale dad waalidka baar u noqoto caruurtaada ayaguna baar ku noqon doon oo aad ku nasan doonta dad waalidka aad nasin weydina oo aad dhibtidina kuwa shaqo dhibid doon oo ka tiri doona ganacsi waxa nabiga marka kula laga wariyay sallallahu alayhi wasallam Abu Darda wuxuu leeyahay radiyallahu anhu nin baa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu leeyahay ninkaasi hooyaday ayaa waxay faraysaa inaan xaaskayga furo ما يوحوا يجيب نكاني أبو الدرداء أبو الدرداء وحكوا له أبو الدرداء والله وحسب ما يمكرني هو يا وحي إليه هذا هاي قبضي عن قبي فرب إليه قال أبو الدرداء وحوا يجري مركة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عن مغلى يقول ورنيا الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه أنا وحكى لكم ورني أو أنت على فرقة ما هيسو أما وحكى ورني لكن waxaan ku sheegay waxa weyn oo nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam waxaasna maxay nabigu wuxuu yiri waalidku waa jannada albaabada kala bartiya jannada bartankeeda weeye waalidku albaabada jannada kan u dhaxeeyo weeye yaani waxa weeyaan waa meesha jannada laga galo ilaa sida loo yahay albaabada dhexda laga galaa sida loo yahay hadii wax galo albaabada kale loo sheegi doono ama qashayo albaabka maartay qofka Soomaaliya kuwaas markii laga hadlayo ma laakiin jannada xagee bartanka laga galaa Soomaa bartankeedu albaabada bartankeedu waa jannada waalidku marka waxaan kula yahay anigu waalid saasa nabi anu ka maqlay marka ama albaabka iska dayac oo yaani hooyo warkeeda diid weey Soomaaliya ama albaabka ilaasho anu hasan kula waxa kale ku jira meesha adigu nin weyn baad horta waxa weeyaan hooyada baarnimadeeda waxa laga taa waalidku sidiisaba islaamaha badan ama la qabo iyo hooyooyinka badan ama isku dhaca marka adigu nin weyn baad rabbi ka dhig waxa isku dhaca keenaya fiir dadkana aqliga galka aan la tasho haday gabadha gar daran tahay meesha ayada baxays hadii hooyooyinka qaar baa qalafsan waa dhici ka dhaay inkastoo ay dhiftahay naadir oo hooyada badan ama wiilkeeda hadii la dhaqaaleeyo oo caruurtiisa la dhaqaaleeyo oo wuxuu u baahan yahay la qabto hooyo ma xanaaqdo badan
hooyo waxay ka xanaaqda badanaba waxa weeyaan waxa wiilka lagu dhibo laftigiisa oo reerkii oo caruurta lagu dhibo oo asagoo ka bixi karin oo naagta ku dhibayso ayaa ku sii dhibsataa badanaba hooyo marka waxa muhiimadu ay tahay adiga hadda janno doonaysid hooyada qanci weyn macna hooyada qan oo hooyada laftigeeda sida arki doono lama oran hooyo wixii dambi ah lagu adeeco laakiin waxa weeye wanaaga hooyada ku adeeco marka adigu adeeg ku taalab ana wax kale ku oran maayo adeeg ku jidhaab saadiyaysan adiga ku taalo way magaranaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam baa u yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri nabi allow waxaan rabaa kaaga idan qaadanaya inaan ku jihaad tago marka nabigu wuxuu ku yiri ahayyun walidak walidkaaga ma nool yihiin qaala nacam qaala fa fiihi ma fajaad ayaa ku jihaad hadii waalidkaa nool yahay ayaa ku jihaad oo ayaga u tago la jihaad sidoo kale waxa laga Abdullah ibn Amr maasoo laga wariyay inuu nabigu yiri in saxaabigaas wuxuu leeyahay nin baa nabiga soo qaabilay sallallahu alayhi wasallam dadkana faahfaahinaya waxaan ku wada baactamaya nabi allow hijro iyo jihaad oo aan ku dalbayo ajriga alle aan ku doonayo ilaahay dadkiisa ku doonayo jihaad iyo hijro inaan ku wada baactamo nabigu wuxuu yiri waalidkaaga wax ma ka nool yihiin midkood ma nool yihiin qaala wuxuu yiri nacam bal kilaahuma labadaba waa nool yihiin فتبتغي الأجر من الله تعالى أجر من ربك دونسا قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبته معه والدك كنغو ولا دغن كودا وناجي بين اساس والدك دغن كودا وناجي بين صلى الله عليه وسلم بعد قرنسا marka والدك markii laga hadlay iyo dhaqankiisa iyo walaajintiisa ahadiis aad u fara badan ayaa ka warantay oo aad iyo aad looga sheekay nabiga sallallahu alayhi wasallam حديثا مركا النبي صلى الله عليه وسلم وكورمي waxa kamida xadiiska aad garanaysan caanka ah Aways al-Qarni saxaabiga in mutaabic ayuu ahaa waqtiga nabiga uu noolaa laakiin nabiga ma arag sallallahu alayhi wasallam wuxuu la joogay oo baari waxa hooyadii ayuu hayay Yemen buu ku noolaa hooyadiisu hayay oo baari uu ahaa ka soo tagi waayay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa marka arinta ninkaas wuxuu kala ballamay asxaabta wuxuu leeyahay usayr ibn Yahya bin Amr waxa laga wariyay ابن حاجب عمر بن الخطاب وحليه إذا أتى كان عمر من كسر وحليه كان عمر وحوها إذا أتى عليه إمداد من اليمن مركي ينادى اليمن كي مركي ينادى بوحه ويدجري أفيكم أويس بن عامر أويس بن عامر من كتشرة مركا النبي وحي رسول الله الصحابة وحليه مركا إلى كيب مركز ما إيمان لا كيب مركا مركو يمين أيوه يعني وحيرا أنت أويس بن عامر مركا صيرها مركا صيرها قبيلك مراد لي لهم خضرات صيرها كذبنا قبيلك غير قرن لي لهم خضرات مركا صيرها مركا صير برس ما قبل كذي وإلهي مكان عافية ومكوها لأن واحد درهم للأجل وحيرها هو يسوع ما الله هنا بارو ما أظن هاي وحير النبي عن مغرب الله يا واحد دين إيمانية أويس بن عامر سوى الله صعد بدن أو ما أعرف هذه منيرة مركو يديه ماذا واحد برس بقبل شيء إلهي بك عافية بردنا ملاك يهدي مركو يماذا من كاسي وحول لها والد له هو والد لها بارب واحد حدو إلهي كبدارته الله أقسم على الله إلا أبره حدو إلهي كبدارته إله كبدارته وحسن دعية نبي يقول حجر وين دعية ninkaas duu ku dhaarto yiraahdo ilaahay ma ku dhaarto waxa soo budii lahaa ninkaas way dhici doonaan ee waxa yeeshaa ninka markuu idin yimaado waxa tiraahdaa ilaahay dambi dhaaf ii weydiin waa Umar bin Khattab waad garanaysaa oo asxaabtii nabiga kamid oo intaas oo jeer lagu bishaaray oo aad ogtiin oo khulafaa raashidiinta kamid ayaa waxa la leeyahay ninkaas maartay markuu yimaado ilaahay dambi dhaaf ku weydiin waxa maxaa keenaya waxa weeyaan hooyadaas oo baariga u ahaa weeyaan sidoo kale waa soo koobeen xadiiska caan wada garanaysaa waxa kale oo kamid xadiiskii kale sidoo kale marka waxa iyaduna meesha ku jirta hooyo iyo waalid xataa hadii horta midda koowaad waxaan boorinaya hadaan wax baran oo diinta ilaahay aadan baran ee hooyo xaqeeda ma garan kartid kana aabo walayahay ma garan kartid dambi badan waad galaysaa aniga wasida idin sheegi doono waxa kale fayraan markii dambe hooyada baari u noqdo barashada diinta ilaahay aan bartay oo aan fahmay ba ilaahay bahadi aan ku mahadinaya inuu isoo siiyay inaan khayrka ilaahay aan ka bartay oo kitaabkiisa aan ka bartay inaan ku dhaqmo hooyana ay tahay waxa ugu horeeya oo xaq inay tahay ma garanaysaa marka
waxaa jiri jiray nin aad garanaysaa isaguna sidoo kaleeto oo maaragtay la oran jiray Jurayj isaas waa taqaanaa Jurayj wuxuu ahaa nin haystay diintii Nasaara oo Nabi Ciise diintiisa haystay baa la yiri marka ninkaasi nabiga ka warramay sallallahu alayhi wasallam isagana waxa weeye marka wuxuu joogi jiray wuxuu lahaa meel sawmacaan oo dhistay ayuu Ilaahay ku caabudisay dadkana wada gali jiray nin wuxuu ahaa zaahid ah oo dunyada ka zaahiday adduunyada aan doonay aakhiro u go'ay baa laakiin xoogaa cilmi yar baa cilmiga xoogaa ku yar marka asagoo meesha samcada saaran oo ku cibaadaysanaya ayaa hooyo u timid yaa Jurayj maanta kale u timid yaa Jurayj soo waa tukaday waa nin salaad ka baxay salaad isaga jira ilaahu ma la kooday weydiisanay salaaduna waa sunna uu tukanaya salaad waajib ma markaas yaa Jurayj markaas uu wuxuu isla hadlay ilaahu salaadina ku jira qalbigu isla hadlay salaadna waa ku jira hooyana waa ila hadlaysa sayya salaad iska sii wada haddana bari baa sanadku sidoo kale waa mid aan ka socday yaa Jurayj soo tukanay yaa Jurayj soo wuxuu isla hadlay salaad ku jira garan bixin ilaahu hooyana waa yeerisay salaadna waa ku jira waxaan cilmi ka mid marka wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam waxay tiri haweenka xun ina wajigooda aragtid baa Ilaahay ka baryay waa ka tagtay marka Jurayj waa magaalada madax degan meel cidla ka degan heer bani Israa'iil baa ku sheekaystay in asaas Jurayj cibaadadiisa waa nin nooca meesha kama soo baxo marka waxa jiray naag caan oo naagaha quruxda badan ah oo reer bani Israa'iil markii qurux la yiraahdo ugu caansan laakiin zaaniyad ah ilaahayna kuma keenay shaqadeeda waxaas laakiin waa caan markii qurux soo qaado bilaayo kale la yiraahdo tiiba waxay tiri ninka sheegaysan aniga ana meel ku ogaa kar cibaadadu waxa sheegaysan ma daa u tago cibaadadu wuu xoreeyay meel baa ku waa shaydaan ee shaqada nabigu wuxuu sidii ku tagtay markaas ay waxay tagtay meeshii sumcadii wata oo yeeday waadi nin dakale ma fiirinayo saartiis iska wata marka nin waxa jira ari jira oo sumcadaas uu degan yahay Jurayj hoosteeda ari raacdo oo halkaas seexda oo ku nasta qaajira ninkii markii Jurayj waxa ka weyday beenkiisu dhigtay bayaalta wiil bay dhashay wiilkii waxa jira waa ka Jurayj sheegay tideen baanay muwaanta Jurayj magaalada yaa Ciisa timid Jurayj baa loo tagay meeshii waa laga dubay waa soo tuuray gabi soo meeshii waa laga soo tuuray wax war maxaa dhacay buu leeyahay cid la hadlays sidii loo magaalada baa la dhexmaray markii magaalada dhexmaray naagi xuma meeshii deganaayeen waa la maray marka soo fiiriyay hawaarkii hooyana uu garanay maanta ay habaadhay way ku habaadhay naagaha xuma arko wixii markuu dhow la cadeeyaan marka qaar waxay bulshada naagaha xuma dhow la cadeynaya mana ahayn wax dhow la cadeynaya hawaarkii hooyo sidoo u dhacay bukayaabay وانت ورمها داعي ورمها وقت waxa la haweentan ka jiraysta wiilka ka dhashay maana wiilka dhalaya wiilkii meey markaas ay waa wuxuu la ragacaan tukaday daay waa yaal labada rag u tukaday nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam labada rag u tukaday wuxuu yiri wiilkii waa ka cawada ka buuxi yaa gulaam man abu wiilow abaha waa ke markaas wuxuu yiri hebel ismi waxa ninka arjilka ahaa hebel arjilka baabaya halka warba inay ku jirto hebel arjilka hebel baani aabay markaas dadkii wada yaabay raali ahaw jireejo raali ahaw soomacadaadi aan dahab kaaga dhigin markaas wuxuu yiri ma dahab iga dhigine baawadi ni adduunyo raba ma dahab iyo xashiisa inaba dahab iyo wada sheegay aniga wallahi iga dhigay bas ka qaadal وده ما ديدين سواء كان يلول لكن بنك في عبادتيسا حتى ذهبك iyo waxa siin u jeeda ma in dakalena ma marka walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaas oo maartay wax badan oo maartay waaridka marka ka waran waaridka hadii intaas Jurayj hadii intaas inta ku gaadhay ka war hadii wax ka badan ku habaar lahayd ka war waa ku dhici nabi sallallahu alayhi wasallam saddex habaar saddex duco habaar la celiyo waxa kamida waaridka ilmihiisa ma ku duceeyo sadaqad ilmaha marna habaar inuu ducaysid mooyaan way waa lagu aqbalay
مقرنس هذه لفتقاقنا وارد كان كتب عيسد بيان مرنا وارد كهبارك هبارك كودها جادين sidoo kale marka nabigu walaalayaal waxa rabaa inaan soo koobno waqtiga soo koobo daraadi waaridka waxaan soo hormarinayaa maaragtay misada aniga laftigayga marka xagga waarid ku saabsan oo aan rabo dadku inay ku qaataan runtii waxa weeyaan anigu runtii alxamdulillah rabbil caalamiin magacay waa Cabdul Majid Maxamed Cali Weyn baa la yiraahdaa waxaan ku dhashay meel bali muslim ayaan ku dhashay adigu sanadihii 64 meelaha aan dhashay hooyaday Allahu naxariistee waxa weeyaan saddex caruur iga waaweyn oo saqiiday misal laba wiil baa saqiiday iga waaweynaa ka bacdina anoo dhowr wiil isku xignay shan wiil ma marka farqad dhamay ma gabarnoo dhaatay marka ana bahda ugu weynaa markii la yiraahdo bahda walaalka wax kala waa jiraan oo bah kala bahda waa jiraan iyagu khayr Allah siiyay marka walaashay gabadha marka shan dalan meelaha ayaa gabadha saddex wiil afshan wiil marka dhalan marka ana ugu weynaa reerka ugu weynaa runtii waxaan ku dhashay bay wanaagsan waqtigaas iyaga ah anagu joogday oo 60 iyo xoogaagii iyo waaridka aad loo ciseen jiray oo waaridkana aad looga dambeeyay hatta waarid kaliya mooyaan dadkii wadanka ku noolaa odayaasha halka ku noolaa Allahu naxariisto dhamaantood kullu aabayaashay wada ahaayeen sawdayay oo yaani kiina soo gaaray ayaa nacnaanan jiray kiina soo gaaray ayaa nawleyn jiray dakhalad gal kiina soo gaaray hadii midna dilo aabo ma sheegi karo sababtoo ah aabo u sheegay soo koranay hebel baa ku diray maxaad samaysay ويورني marka ma sheeg hadda wada aragtana waxa weeye dadka markan jooga ilmihii waxay rabaan sameeyaan ciidan ma celinayso hadana haduu dabacdeen meena ay bisin waaridkii ordiga ku imaanay waxa taabtay ku koranay waa musiibada halaageena haysta ka mid tahay hadda marka ilmo badan oo raboobaya oo badan ma jira ilaahay wuxuu rabeeyay mooyaan ilaahay ilaaliyo mooyaan aad baa loo baqsay xilliga hadda aad ma sheemayso marka xilligaas aan ku soo koray kadibna adigu hooyo ana ugu weynaa caruurta iyo guriga raashka ana karin jiray aabaha askari buu ahaa bil buu noo soo diray waa garanaya 300 sano bil baaba noo soo diray 300 bilka 210 bil baan ka dhigay 7 shilin maanta biiran jiray صدق كبري أبغى طبعاً بمبينين شري قدرات السواء هرين دكسي سكول كي وحاسي أنا بيجي سكري بوها لعكنا مسوق شري وحكنا ما ندور شري بريء الشحالي وحلا ما أقوم يا ما توحكله وحي اللي هلا ما تغير اللي هلا وكهذا ده ما تغير اللي ويانا بيا السكعب شري عندنا ما بريء شري هلا ما هذا شري وحاسنا وحكنا لما أقوم لا يماد marka waxaan dhacday saasa ku koray anagu dawladda kacaanka waqtigeedii baan ku soo beeganay oo aan gaaray anagu aan 7 sano gaaray kadibna iskuulka halkaas ka bilaabay iskuulka markii aad muddo dhiganaydeena ka bacdi adigu waxaan iskuulka eerta uga tagay ka bacdi xamar markaas aan aaday adigu hooyo aaba waxa igu dambeysay 1900 baa igu dambeysay hooyo 86 ee xamar aan oo joogo marna ugu timid ka bacdina xamar baan iska joogay qaxi baa xamar noogu dhacay أنا محمد شغنا وله هو يابار بعد حين نقول نعي تحي بنكون نقول نعينا حاجة أصلية كونفور بارون قحني هي كسباعي كشة إلى حمر إلى يوروبيا بركة البلاد اسبانسية هذه هذا هالك أنا وتشرح أبي هو يلا بضرب أبنا وحي قدام بس 1987 مركز لسه وضع كمان قال لسه ساعات أو برا لسه بان سومر قال حاجة أنا شغدونا أو ساعات يرادنا كمان لافون لو نشري برا لسه وضع لسه شري ما ولا أبي قدام بس هو يرى لسه قدام بس مركز يوروبيا بركة بنتجا أبي قدام معك دينتي مركز دواء هذا دينتا وقت سياد بحي دينتا دين لما أقولين لما بطل ما أقولين فأتكي وحبر يا واحد ورد شري فلا الحمي بعد هو يقال في حق الشيء فلا الحمي لو أقولش مركا أسكوك قال إنه وحن قادش رهيست كعان فقادش وحرونش وحاسا لغة الغادش مركا واحد دين أو بدن مبشرين لكن واحد دقن كددك وقت ياتشوغي بعد وارد السياح ساسا نكون ولين مركا لكن هذا سوى قرنيو ودينتا قرنها واقع سكا بدل ما أقول منها هذا على كل حال نبدأ أن هذا دينتنا waan bartay marka diinta bartay marka waxa ila xumaatay hooyo aw inta aan arag inaan sii maqnaa adoo hooyo aaba marka aan marka joogan ku riyooday ayaan ma riyooday waxaan ku riyooday anoo meesha balabsaliyaada imid aaba ugu imid markaas aabe aan meeshii ku salaamay markaan saa isu salaanay ma Cabdinajiib baa yiraahdaa saa markaan isu qabsanay baan booyna farxad baan la booyna أنا بويا صوته صيب بس مركب ما تشوفه مركب ما تشوفه وأنا بويا أبرا ما هي كل جيبان ساسا يقول على هذا ما كواد إن الله مسانو أرب بدنتي شرنا إلهي سوكا يكينو إلهي واحد يقبل شرنا إلهي سوكا يكين إلهي بس هو يكجار بعد هو يحسك جاي وأصل وكان يحسك جاي وان نقضي
waagi dambe haddana marka Mareykan iyo Yurub baan joogi jiray marka meesha markaan tagnayna waa taqaanaa dhulkaas Yurub la yiraahdo dadku ma yaqaaneen waxa way meel Ilaahay lagu caabudo ma aha yani hadii lagu caabudana waa cibaado yar wax lagu caabudaa waa shaqaanu ka helay meel shaqo ka helay shaqada aanu ka helay salaada lama ogola Soonia waxaas daba iska badaa marka maalmaha ka mid ah shaqooyinkaas waxaan ku yiri jamcada of ma helaya ninkii shaqada maamulayay maxaa ku falaysaa buu yiri jamcada waa tukan lahaa wuxuu yiri wax diin leh hana shaqo kuma leh wax diin ah tag badan Soomaaliyeed ilaa konton qof baan nahay shaqada marka la qoray baan kulli meesha fadhina wuxuu yiri anagu juu waxa la yiraahdo juu waa yahuuda shaqo kuma leh kristaan shaqo kuma leh muslimka uu dambaysiinaya wuxuu ka dhigayaa inuu asaga jecel yahay oo san dambi inuu asaga ka bilaabo diiday laakiin uu soo socda muslim wuxuu yiri asaga shaqo kuma leh marka wuxuu yiri anna shaqo kaliya naqaan wax diin ah qofkii diin ka hadlaya ila ku afran yahay ablaka qofkii diin ka hadlaya ma afran annagana kulliga bil baan ka sugay oo Yurub Afrika baan ka sugay oo ciyaalkii baan ka sugay oo meel kale aan male Soomaaliga wallahi baan hadaf naga bixin qofkii wuxuu yiri diin waxa ka hadlaya ila ku afran yahay watay kale أنا والدين واحد شغل كليا أنا قاعد بس شغل كليا بس هاي بس ما كمان عن قاصر الناس أنا سويت والله بتقول لي وأنا سويت تقول لكن تجد يسكتك ما هي خلاص يا هو بقول بعض ومقصر بعض بعض هذا مدة يقول هذا طيب على كل حال كان عن هو يمرك هل كان ولا شيء كويس هو يمرك ده هاي ده كلام ما هو يحب هاي لكن حنون ما كل عين قياس كل عين كل عين معها حاجة مسكحة dadka maskaxdu ay yaraato oo hada carruurta loo celiyo kale been noqoto macnaha sidoo kale lugaha iyana waa ka weeyday oo ma kacayso tulsiga waxa la saaran mooyaan mana maartay aqli badan ma jiro marka saas iyada baan u nimid waxaan ku yiri walaashay hooyaan qaadaya bal musa ayaan ku soo haynaa galka waxaan ku dhabca kale cabada baan ku ugu taan ciyaar laakiin waxaan ku yiri xaggaas aan ku soo haynaya ayaan kabacdina waa soo celinay way hayay ciyaalkii ciyaar dhalay Nairobi joogaano iskuul secondary waxa waa dhameeyeen inaan dibad ama meel kale wax u qabto iga suuqayaan laakiin waa qaangaar kulligood waxaan qaangaar kuma jira marka hooyo markaan geeyay marka tuulada la tagay ayaa maalin maalmaha ka mid ah marka tuuji baan wadaa sariirta ii saarata anaa sare ka dajiday bay waxay tiri hooyo waxba soo haya hooyo waxba soo haya tuujiga baan soo qaaday waxaan sir u dhig oo ku soo fariis waxaan tiri hooyo waa soo dhaafay بس waxay noqotay inaan wixii dadka baxsho wixii ka dhaqo maartay aan isla hadlo marka anigu isla hadlay dadkii baan ka dhaqay baan ka baxshay baashan saani xilfad ugu xiliyay waa gaajiyay waa isla hadlo marka hooyada cabdi u kasta ka maqnay intaas aan ka maqnay maanta u tib nin sheekhaad quraanka ilaahay baa taqaan diinta ilaahay baa taqaan rizqa ilaahay baa qoriibad ku haysa dadka adaa wacdinaya har iyo habeen ya haddana waa ka tagaysaa ciyaal baa aadaysa hooyana waa saas walaalahay runtii diyaar bay u ahaayeen gabadha walaashaya diyaar bay u ahayd hodan baa leeyahay hotelkaas shaarada gabadha weeyaan diyaar bay u ahayd hooyana haynaye bay lahayd ciyaalka ay ku noqon oo soo shaqeen ilaahay walaalahay mid kale baabuur buu wadaa reerna waa leeyahay mid kale baaduu degan yahay saddexdaas baa joogta walaalahay aniga marka wax madax banaan ugu dhow markii la fiiriyo inta kale haween wada leeyahay diintiina waa aqaan waxaan ka wada qaarsaagada ilaahay ma bixiyo يعني هو يقال لك وحكى ولا ده الشيخ بان أنا يقول منا لا في القرآن كذا إنما يخشى الله من عباد العلماء إلى هو كعب صدا الدمس حاله كم يديه هو علمي قال بس بركوا واحد علي وأصلها اللي ما هي الكلمة غير كلمة مسؤولية وغير كلمة ربط وغير كلمة ربط كم دولار وغير بيله خلاص ما له وحيا لا أنا بس حاضر كسر غانجاري العيال وكان هو مركز لبيت ونحور 2004 بس شيء 2002 بس شيء مركزنا وافوتين ما لها صوت صدق يتوني وشلا غانجار ما هذا كبير بقول ده waxaan عندي مركز سيئة هويلا حدثنا وحدثنا ما ترجع سمعت هوين كذا هي أول سقرة نيجي مران كي تلاقي كبار من هوي أبي هو أبو قلت له أنا أرجع وحبضن بقى يبلغ غني يمدنا كم غنائي بس مركان النبي وحي نبر صلى الله عليه وسلم يعلي على الاستخارة هذه حالة حوجا أي قوة أتكاتو قللا طلب متنا يسا استوتي يعلي على الاستخارة والنبي نبر يقف الاستخارة لما رجعت كنيسة بعد آخر يسا الله من يستخيرك بعلمك وأتفق بمقتدرك وأتفق بالاستخارة ما تقاني ويكون غرمتها إذا مسلم يكون غرمتها بعد آخر السبب عن قوان صدي لما رجعت كذي إلهي وحي قوان كذي يقول لي إن أنا هوي لك استغفر الله لما بحث عبدي هويدا مرتوا هيستا وحال هذا واتشنو عرونا واهيستا أفكار الله بقى وحقري سمانك
waxa galay ilaahay baa qoray waxaad raadinaysaa markii Soomaaliya maxaa ka sameeyay مواد قول كدس مواد كدس أفكر العوني وحنا ذاك كان أفكر إلهي بقروس بهي سما وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم marka abdi asaasiya sidii baan yeelay wala soo dalka wala soo hadlo dadka inta soo wada islaanta aan qabo soo qeydisay khayr Allah siiyo gabadha aan qabo igu duceeyo khayr Allah siiyo wajhu qaata runtii gabadha aan qabo horta ila shay reebo degtaa wala waa degtaa Soomaaliya garan waa iyadoo waa soo ciyaarka maxaa ka damacday aduu duco qaadaan ku ilaahay ducada bay qaatay walaalahay kulba soo qeydiyeen kuwa waxay anaga haynana hooyo maxaa ay ku dhacno ma ku filay ala kulli hal ma yahay marka waxyaalaha soo wada waxay yahay hooyo aqliga ilaahay wax ka qaaday markii dambe marka aqliga hama taageerayso marka wax siinaya marka wax sameeya subaxii marka quraacda siinayay marka ugu weynayay kulli aaba ikraahda aaba ana waxaan hooyo waxaan leeyahay aaba leeyahay hama taageerayso hooyo waxaan aaba haya aaba leeyahay arrin baa loo marka galabtii casarkii markay tahay baan casharada waxay siiyaa markaasaan tuujigana waa saaraa hawshada ku dhamaysataa ka bacdina uu qubeeya marka waan tago waxa soo qaatay saliidan iyo hawlyada ayaan soo iibsaday caag iyo saliidada baa marka uu qubeeyo ayaan u soo mariyaa madaxa u soo bilaabaa aniga marka waxaan ka soo dhaafay inta aan joogay in badan bay ahayd reerkii ilaahay waa xaliyay meel baa ka keena ilaahay waa wax keena ilaahay waa waxaan qoray reerkii meel baa ka keena inta iska noolin reerkii hadba wax bay helaan marka hadba wax laga helaa marka wax laga helaa ana wax la soo diraa ana wax u diraa wala ii soo diraa waa u diraa wala ii soo diraa u diraa ciyaalkii mid ka mid ah gabar bay ahayd jaamacad bay heshay waxay dhiga jirtay iskuul aan taarasuun iyo galka Nairobi ku yaala Cabdi iyo Sheekh Riyad ay joogaan jaamacad bay heshay tarad bay baratay hadda way ka soo baxday waa soo dhameysay alxamdulillah bil caalamiin dadka la kuwa waxbay barteen macna ilaahay akhriyi reerka ilaahay bi hasbunallahu wa ni'mal wakiil ilaahay waa gafar subhanahu wa ta'ala marka hooyo waxa dhacday arrin cajiib marka bay waxa ahayd arrin cajiib ugu daray waxa ahayd oo aan rabay inaan idin sheego galab kasta markii aan ugu oo aan maartay saliid u marinayo oo aan saliid lugta soo gaartay lugaha aan saliid marinayo oo lugta aan soo gaaro baa aqliga loo soo celinayaa aqliga loo soo inta kale aabaya laakiin marka halkaas ay marinayo baa soo toosan taas isa fiirinaysa عدني هو صوت صوت إلهي وحن كبري رغم عذاب ويا أمي أوت الله يلاقي تفت الله يلاقي ربا الله يقص أوت الله يلاقي وعلى يلاقي آمين بعد وحي بعد وأتبت لي أبا إلى الحلول ما أنت ما كسرت برجع ودمك اللي قال فهذا ما سامك مركز سيد لوها مرني مركز سيد لوها مرني يوم فهذا برجع مركز هالك سيد مرني بل صوت أنت أبا إلى حمله وصوت عبد النشيد أنا هو واحد يسمى عبد النشيد لكن هذا واحد الله عبد المجيد يعني نفسي معايا لا تنشر الله إليه عبد المجيد ما كذب لكن هو عبد النشيد بيجلس مركز واحد عبد النشيد هو إلهي وحن كبري لا نحرمكم آمين هوي إلى حتى لا يجاتي تعالى يجاتي ربا لا يتسي الدنيا آخر لا يجاتي أردت الله يتسي حاسي الله يجاتي ولا آمين وحيك بعدي معروتي إلهي أدنا صادق مقرمتي عني صادق مقرمتي عني waxaan leeyahay martiba ka saydo baranay oo aan soo gubay oo saliidii aan ugu tabaranay baadana soo toosinay waxay leedahay cabdi soo toosay hooy ilaahay wax kibri jannada ilaahay آمين هوي الله يسير رب الله يسير وطلع يا جاتي بدون يا جاتي أغلى يا جاتي أنا ريال واحد عجيب لك أنا جاي بس واحد صدق ذا الدعوة ينميه وصدق ذا الدعوة من أفرادنا ملك من شرادنا ملك هو يلي عقل الملك عقلية ومغيب يا كهل لنا الله ما كهل لنا سبحانه وتعالى إلى أمر ما كهل لنا وحصل الله يابله صدق ذا الدعوة من أفراد ملك صدق ذا الدعوة أنا عدوني آخر كل ما يسترين طيب من وعوية ما يلفر ربكم أدو يا طفل ما يلفر ربكم أدو يا لا بأفهم لك من نوع حوية إلهي وحن كبري يا سند إلهي نقبري سند إلهي بيكو سند الله بقيه ما يلفر ربكم أدو لكم عذاب
الحمد لله رب العالمين سمادك وحي لم تهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعن كلاية وعن قلب كسنا وعمد كاملة منا متكو خلد ميسو منا لبكسر يورن ميسو مد كستا هل ضرب يورن ميسو هل كبر بالفوتو سنين بس صدح هذا الدعاء من أفراد ملك الدنيا يا أخي من كمان مغنى ما يحرمكم مدو لو ما عذابه سندي الله كجيو سامك أبوها يسا أقرني يا بان من نفتي قبته هو يده نفتي ما قبته عرفت وقت بلالا marka gabadha walaashay aan joogtay maanta ila joogtay anoo magaalada baxtay hooyo xanuun baahaya wiil dhakhtar oo baan ku orday waa soo orday waa fiirfiirinay waxbaan raadinay dawaan raadinay intaan maqnayn bay hooyo nafti ka baxday baan xariisanay Allah ka wada markaasaan waa u nimid aniga wiilkii soconna waxay tiri walaashay abo hooyo waa أنا أقول أنا كلام سكبول ما يروح يقعد وتوكل العرب يا وحنا لبوي ولا حنا لبوينه صدق الدعاء ما نكسر يسوون كذي يا يقول لا ولا حريص سبحانه وتعالى marka yarkii baa ilaa loo xubay warniyo qabdhiga booy maxal booy sabbiga booy biyaan maxal booy sabbiga booy biyaan waad iga qeybantay marka waxaan rabaa walaalayaal waan yeeray malaynayaa waxaan rabaa war hooyo qof walba ogow ilaahay ku sheegay war hooyo qof walba qofkii hooyo haysto ya aabba haysto taanida haysta taaniska iska dayay war hooyo adduunyo wax ma taqo war sabkeeda anaga soo xaarnay meelaha ka shaqeeyo waxa kamid ah Seattle Washington qofkii yaqaan baa yaqaan Mareykanka bas u dambeysay qoraal u dhacdo way Seattle Washington Mareykanka qoraal bas u dhacdo way diyaaradaha China ay aadaya halkaas ay aadaan markay aadaya halkaas u duula xagga sheeda ka gala Soomaaliga ama qoraal u dhacdo way garanas waxa ilaahay ugu qoray kabada kama heli kana helimaysa waxa intaas diiday caruurtii waa la qaadanay oo haweenkii iyo dumarkii waa kala tagayaan oo inta ciyaal la aaday Allah uga soo celiyo ehelka inuu naqaano caruurtoodii wax badan laga sugmay inay soo laabtaan wax badan laga sugmay marka waxa la hadlayaa khaasatan dadka caruurta iska leh dadka hooyooyinka haysta aabooyinka haysta horay chance baa iska dayeen dad waxa jira dibadaha jira oo lacag soo dira oo waalidkood lacag soo dira ayagii ma joogaan laakiin waxa oranaya hebelka uu dirayana damba hooyo lacagti gaari ma jid meel badan la cunaya dib mid kale manin qaad cuna iyo sigaar cuna baa hooyo ku haynay manin balwad ka shaqeynaya hooyo ku haynay manin adduunyo raadinaya hooyo ku haynay mid kale adiga hooyada jannadaada adiga lagu diray qofna kasta lagu ma oran mid kale hooyo ya aba waa janna adduunka yaal ee iska dayicina anigu waxaan rabaa inaan booriyo warayo qofkii hooyo haysto u caraf إنك صلى أكو ما تكتب هو يدا عرب وديره أو أنت وقت وكان عين هو يدا عشان هو يجسوا عرب بالله هاي مركا عدي إنه كهذا الله وارد كائن بعد الوضع وها النبي ونبي صلى الله عليه وسلم دين كان من ودي دي وارد كائن عار لو نقضه ولو عاسيه تاسع هو قد أرنا السبت أو بولاس كان أرنا استقال كمل أيام تابعنا النبي صلى الله عليه وسلم ونور عسيه صلى الله عليه وسلم وحكمل حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ميانا يدين شيء الدنيا كو هو وين قلنا بلى يا رسول الله ما هو نو شيء الدنيا واوين وهو وين نبي الله نو شيء قال النبي وحي على الاشراك بالله اله او لا وداعسيو وعيد لو لما انيو لو شريك يالو ee wadamina ugu weyn وحقوق الوالدين هي والدك وعاق لو نقضو وكان متكئا فجلس فقال على وقول الزور وشهاده الزور نبي marka waxa weeyaan waa marka qorshaha la isna waa soo fariistanay saafta marka soo wuxuu yiri waxaad iska jidaan ogaataan isagana qowl الزور waxa la yiraahdo macnaha makhaatib gaanaala iska jira sidoo kale Abu Hurayra nabiga wuxuu ka wariyay sallallahu alayhi wasallam xadiiska dheeraad garanaysan waxa kamid ahaa رغم أنف marka nabigu thumma ragima anf nabigu wuxuu yiri samha
booroobo san ha booroobo ciidda ku dhaco yani ha halaagsabo mayla nabiga waxaa lagu yidhi man yaa rasuul allah qofkaas nabiga loo habaanay waa kee qaala nabigu wuxuu yidhi man adraka abawayhi cinda alkibari axaduhuma aw kilayhima falam yadkhul aljanna qofka soo gaara labadiisi waalid ama midkood oo aan janno ku galin yani naarta ha galo waa xadiiska dheeraad garanaysaan buu ka mid ahay oo kale waxa weeye jaabir bin samura laga wariyey nabiga sal alay slam nabiga mimbarka saaran ayaa 3 jeer wuxuu yidhi aamiin 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 marka asxaabtaa weydiiyey nabi allow maxay tahay aamiin 3 jeer baad aamiin tiri nabigu wuxuu yidhi waxaa yimid jibriil calayhi salaam wuxuu igu yidhi yaa muxamed man adraka sala allahu alay wasalam man adraka axadun abaway qofkii soo gaara labadiisi waalid midkood soo gaara oo famaata geeriyooda fadakhala naara naartaa ku galo yani ka ducaysan waaya faabcadahu allahu allaha dheereeyo naarta allah ku dheereeyo markaa waxaan ku yidhi aamiin qofkii soo gaara labadiisi waalid oo aan ka ducaysan ama naar gala isagoo waad ka ducaysan naarta allah ku dheereeyo ku fogeeyo yani qofku waalidku soo gaaro da' waa inuu ka ducaystaa waa marka ugu baahi badan yahay waana marka nabiga sal alla alay slam uu faraya inaan ku dheereeyo nabigu wuxuu kaloo yidhi sal allahu alayhi wasalam ibnu cumar waxaa laga wariyay nabigu sal allahu alayhi wasalam alaaatun laa yanduru allahu ilayhim yowma alqiyaama saddex ilaahay maanta qiyaama ma fiirinayo alcaaqil liwaaliday ninka waalidka caaqa ku noqday waa mudmin alkhamr iyo qofka khamriga laasimay hadda saad ogtihiinba khamriga aad buu ku badanaya waray khamriga aad halaysaga jiro khamrigu waxa weeyaan dunubta waaweyn oo kabaa'irtaabuu ka mid yahay waxa weeye dadku ku faafana fashil iyo ceeb baa ka dhalata iyo xumaan baa ka dhalata daroogada uu ka mid yahay maarta khamrigu ka mid yahay aad bay u faafaysaa qaadkana bar iska badaa warkii waxa weeyaan lacagteena iyo nafteena iyo maalkeena oo ku dhammaadeen ilaahay aan ka baqan oo dadkeena aynu waxaa ka ceshana walmannaan acdaa'u ka qofka ku galadaysta nabigu wuxuu kaloo yidhi sala allahu calayhi wasalam ثلاث حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة صدح إلى جنة وكحرمي مركا النبي وحو قدري والعاق أيا كمدها يمين الخمر أيا كمدها ولا لا ياسدو كله وحو ويان waxaan rabay inaan iyadana idin sheego nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam waxaa aad u badan dadku inay qof waalidkii wax ka sheegaan oo ay u qabaan saa inay ku badbaadayaan nabiguna wuxuu sheegay qofkii qof waalidkii wax ka sheega inay la mid tahay isagoo waalidkii nacladay qof baad arkaysaa waalid qofka nacladay naclad waalidka ku yaal aabbaha waxaa ku samee hooyada wadda waayaan aad bay u badatay ha ogaado qofku wax ka sheegaya waalidkii wey sababtoo ah nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam inna min akbari alkabaa'iri dembiyada kuwa weyn waxaa ka mid ah an yalcana rajulu liwaaliday qofku inuu waalidka naclado waxa lagu yiri nabi allah see qofka waalidka uu nacladay nabigu wuxuu yiri qof kale waalidkiis buu nacladaya markuu qof kale waalidka naclado baa qof kale asaga waalidka nacladaya marka waalidka asaga hooyadiisu nacladaya isaguna hooyadiisu nacladaya marka qofka waalidka asaga u soo jiidaya in la naclado waxa arkaysaa suuqa hadda waxa aad ugu badan in waalidka la naclado oo qofka naclada waalidka ku yaal hooyada waxa ku samee la yiraahdo aad u badan marka arrinka isaga ah hal la ogaado marka qofku aad hooyada waxa ku samee asna wuxuu ku oranaya hooyada waxa ku samee qofna alla hooyada ku yaala wax la mid ku oranaya hadduu ku yiraahdana hooyada adiga nacladay waa in ogaato dambiyada waa in ka mid tahay walaalayaal khayrka Allah inuu istolsiiyo ma soo koobi karo oo diinta aad baa nabigu uga hadlay sallallahu alayhi wasallam ilaahay inuu ku faahfaahiyo waalidka in laga ducaysto qofka caqli leh inta waqti uu ka dhicin waalidka qofka ha u dheereeyo oo ka ducaysto oo ha u dheereeyo sidoo kale waxa halkaan uga ducaynaya aniga laftigayga iyo reerka iyo mustaqbalkayga intii aan hawsha ku jiray oo hooyo aan hayay iyo maartii aan la joogay hooyo iyo dacwadda iyo khayrka aan ku dhex jiray dadkii soo taakuleynayay waxaan rabaa inaan u duceeyo ilaahay adduun iyo aakhiraba Allah khayro caruurtooda Allah u hagaajiyo maalkooda Allah u bulaaliyo naftooda adduun iyo aakhira Allah u hagaajiyo waalidkooda Allah u dambi dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigooda Allah dhaafo jannadiina Allah geeyo ilaahayna subhanahu wa ta'ala maalkooda Allah u barakeeyo caruurtoodana Allah u barakeeyo meelaha dibadaha ay jiraan iyo meelaha ay jiraan badan oo kamidana waxa weeyaan ku gudaha joogaba waxa weeyaan ilaahay aniga ma garanayo inta abaal ii gashay ilaahayna waa og yahay waxa idin leeyahay idinkuna aamiin Soomaaliya intii dhageysataa iyo dhahay Allah hagaajiyo dadkaas arrimahoodana Allah isku dubarido jannadiina Allah dambigooda Allah dhaafo iyo kii waalidkood baa Allah dhaafo inagoo orana Soomaaliya hadaan nahay dhibka Allah ina ka dhaxsaaro oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku laabta Allah ina ka dhigo alla ogaado Soomaaliya dhibka haysta inaga isu keenay ilaahay aanu noqono oo ilaahay u toobad keeno oo ilaahay kitaabkiisa gacanta ku qabsano hadaynu ilaahay u laabano oo qabyaalada iyo qurunka iyo shida iska dayno ilaahay subhanahu wa ta'ala waa in aqbalaya ilaahayna ghafuurur rahiim weeyaan ilaahay aynu u laabano subhanahu wa ta'ala ilaahay adoonkiisa aad
buu ugu farxaa inuu soo laabto hadduu dambaabo marka waa dambaabnay milka Soomaaliya ka dhalaa 40 sano innaga shaqaysanay oo dibadaha iyo meelaha ku lunsannahay innaga isgeynay innaga isqaxinay ilaahay aan uga laabano madaxda Soomaaliya meesha taa waxa ka codsanaya inay wanaag raadiyaan ee walaalnimada oo dagaal iyo dhib horay baa lagu baabay waxna lagu waa walaalnimada iyo santinimada iyo isxiriirinta iyo wanaag laga wada shaqeeyo baan ka codsanaynaa iyadaan hormar lagu gaaraya ilaahayna xaqiisa noo celiyaan oo kitaabka alle aynu qabsano kulligeen subhanaka allahumma hamdika anta astaghfiruka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana ahay looma hadle hadal ma harin hadii culimadina waa fadhidaa anigu culimada ka mid ma ahi laakiin waxaana la kala hadlay waxa qaaliya oo qof walba fahmi karo qof walba wuxuu fahmi karo ayaana la kala hadlay ninkii hooyadiis noo shahow ninkii hooyadii noo shahow janna ku taala iska dayicin aniga ima taalo ninkaana uma taalo waana dhaaftay war ninkii hooyadii noo shahow waxba ku yaala wariyaan la iska dayicin war janna cidla ma taalo war wallahi ciriiri bay ku jirtaa markay meeshaas gaadho ninkaas meeshu ka sheekeynaya markay hooyo gaadho intay arigeeda maalayso badarkeeda karsanayso hadii ala ku reey suuqeeda aadayso arrimuhu waa gaar waa kala jira arintu markay sida caruurta saxarada laga tiro xafaayada loo xiro laga saaro loo qubeeyo saliida loo mariyo halkaas ay janno u taala way rasuulku wuxuu yahay salaatu wasalaam ninkii janno rabo hooyada cagaheeda hoosteeda ka day korkeeda lama oran lawyaha lama oran bal hadda wadaadku wuxuu yiri markaan lugta marayo lawga hoos u dhaafo cagtiga la maraya Soomaha waa meesha ku jidhay waa ninkii Ilaahay faansiyo aniga hooyaday noocan ninkaasi uu sheegayo waa gaartay laakiin sidaas tirada badan oo sheegayo uga faa'iideysan dad dumar la yiraahdo la iga xijiyay oo ma garanaysaa ayaga ku hagoogna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaga iyo ayada baa u naxariisto marka waxa weeyaan ninkii hooyadii noo shahow hadal xun qoriyo ninkii hooyadii noo shahow hadal xun uu qori war ninkii hooyadii noo shahow hawl baa ku taala aabba waxa la yiri waa da'da afraad weey saddex markii hooyo loo naxariistay marka afraad aabana ciyaar ma aniga aabba iyo hooyo labaduba way ugu gaboobeen labaduba ninkaas meesha ninku meesha joogay gaareen laakiin nooca uga faa'iideysan Ilaahu subhanahu wa ta'ala uu dambi dhaaf ayaga uu dambi dhaaf laakiin ninkii hadda ay u nooshahow waxaad yeeshaa jannada ha iska dayicin wax la hubo hooyo cagaheeda hoosteeda jannada ku jidha way rasuulullaahi maxamed sheegay ya jannada cagta hoosteeda ku jidha hadda kala soo bixi weyday nacas baata dadka diin la'aan baa haysay sida ruuxantii dadka diin la'aan baa haysay wax kale ma haynin waa garad Soomaa marka adduunka maanta la joogaana sidoo hore waa ka bedelanaya Ilaahay caruurta ha noo hagaajiyo Ilaahay ilmaha ha noo hagaajiyo Ilaahay annagana ha hagaajiyo waaridkeena ha u naxariisto Ilaahu waaridkeena u naxariiso rabbiyo intay dhimatay Ilaahu u naxariiso intay joogtana Ilaahu u naxariiso annagana Ilaahu noo naxariiso Ilaahu waaridka u naxariiso Ilaahu hooyo u naxariiso Ilaahu aabbo u naxariiso Ilaahu annaga noo naxariiso Ilaahu walaalaha iyo waaridkeena u naxariiso Ilaahu naxariistaada ku weydiisan rabbiga jannadaada nasiib Ilaahu raali naga noqo ridadaada Ilaahu rabna Ilaahu raali naga noqo sallallahu alayhi wa sallam